السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أخيارتا كحرن يوتيوب كان ومع العقال ما انت هدو إلهي محرابين كان كوسو قد بيو فإلوينك ألاذا هي مارينتا وقتك قرنتان أو قد الموضوع عنا فضلا هدي كعصبتها يوتيوب كا سبسكرايب له كمبيلكم فولو إن شاء الله تعالى وحن كوبا لنقاضيا إن هذا كون قوب دونين أما هذا كو خساري دونين وحنا نرشح هذا وحقدره إن شاء الله تعالى هل كان كلاس عندونتي أخير السودة وهذا مركلة أسبوع كور أي أهيد مركي عن سيمينار عن كقبتي موضوع عن آدك أقيمها بدن سيدا الله ماريو وقتك سيدو كلا muuqaal hore ayaa jiray oo halkan aan soo dhigay oo ku saabsanaa sida loo maareeyo waqtiga marka su'aalo badan ayaa dhalinyaro badan soo weydiisay oo ku saabsan faa'iidooyinka uu leeyahay in waqtiga la maareeyo dabcan waa iska caddahay hadii qofku waqtigiisa uu maareysto oo nidaamiyo waa seminaarkan ku sheegay waxa waaye nolosha waqtigu waa qof waqtigu nidaamiyo waa qof noloshiisa nidaamiyay marka waxyaabaha faa'iidada waxa kamid ah oo uu helayo qofka waqtiga nidaamiya number 1 qofka hadafkiisa iyo ujeedooyinka uu leeyahay ayuu wuxuu noqdaa qof si dhakhsal u gaar noloshana waa sheegnay qof kasta waxa muhiim ah inuu ahdaaf leeyahay hadafyo iyo waxyaabo uu nolosha u rabo inuu Ilaahay u hiigsado marka ahdaaftaas haddii inta hadaf degsatid aadan waqtigaaga ka faa'iideysan oo waqtigaaga aadan maareyn wuxuu noqonayaa hadaf meel iskaga qoran oo gaaristiisu laga yaabo inay waqti badan ay qaadato ama se la gaari waayaba laakiin se haddii hadaf aad leedahay kuna dartid inaad waqtigaaga maareysid waxay u badan tahay in hadafkaaga hadduu Ilaahay si dhaqso leh aad u gaartid faa'iidada labaad ee laga helayo maareynta waqtiga waxa kamid ah qofka oo shaqooyinka uu qabanayo ay noqdaan shaqo waxtar leh macnaha shaqo waxtar leh wax soo saarka qofka oo kordha haduu arday yahay oo uu ka faa'iideysto waqtigiisa inuu maareeyo kala nidaamiyo maalintii inta wax uu akhrina u qoran tahay sida wax uu akhrina u kala qoran tahay qofkaas ardaygaasi dabcan wuu ka shaqadii wax soo saarkiisa wuu ka fiicnaanayaa ardayda kale marka waxyaabaha laga helayo maareynta waqtiga waxa kamid ah qofka oo shaqada uu qabanayo noqoto shaqo waxtar leh ama wax soo saarkiisa oo qofka oo kordha waxyaabaha kale oo laga faa'iido maareynta waqtiga waxa kamid ah stresska iyo isla hadalka walwalka ayuu yareeyaa ina waqtigaaga maareysid waxay yareynaysaa in stress uu kugu dhaco tusaale ahaan waxyaabaha stresska laga qaado waxa kamid ah maxaad qabataa maxaga wax ka qabataa si yeesha waxaan maxay kugu dhacayaan saan maxaa waay hadafkaas maada gaarin maanta waxa maada qabsan waxyaabahaas dhan ayaa badan laga yaabaa stress ka dhaliya laakiin marka waqtiga uu ku maareysan yahay oo saacadba saacad waxa aad qabanaysid ay ku qoran yihiin oo nasiinada ay ku qoran tahay stress waa ka yaraanaya Ilaahaydna waxa kale oo kamid ah caajska ayuu ka hortagaa qof marka waqtigu u maareysan yahay oo habeenkii intuu seexdo ay u qoran yihiin wixii bariso waxa Ilaahaydna uu qaban lahaa caajisku kuma soo degdegi karo oo qofkan oo qof inuu hadaf gaaro maantay وقف وقتيس ماريسن yahay ka hortag ayuu u noqdaa caajiska sidoo kale waxa laga helaa waxaan la yiraahdo qofku inuu isku kalsoonaado kalsooni inuu qofku nafsadiisa kalsooni waxay ka imaanaysaa markuu qofku maanta u jeedo waqtigiisa nidaamiyay oo maareeyay oo hawl oo meel wax keenay shaqo u qabtay biriyadan shaqo kale uu ku daro biriyadan shaqo kale ku daro qofku waqtigiisa u maareysan yahay waxay noqonaysaa qofkaasi inuu qof nafsadiisa u jeedo nafsadiisa inay wax qabanayso sidaas wuxuu noqon qof nafsadiisa ku kalsoon insha Allah ta'ala wax yar kadibna hadafyadii uu lahaa gaari doona marka soo dhawaada waxaan akhyaarta kula talinayaa duu Ilaahay idmo waqtiga laga faa'iideysto waqtigu waa nolosha waxyaabaha hadiiskii Jaabir uu warinayay qofka inuusan Ilaahay agtiisa uu ka tagay maanta yoom qiyaam ila 4 su'aal laga weydiiyo waxa kamid ahaa cumrigiisa qof meesha ku soo qasaari dhalinyarnimadiisa meesha qof ku soo qasaari dabcan waa fahmi kartaa dhalinyarnimada iyo cumriga waxaas dhan waa waqtiga marka waxaan leeyahay waqtiga laga faa'iideysto adduunka aakhirada loo didaalo soo dhawaada assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
inaad muuqaaladeena si bilaash ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second